إيمانك شيء قرا لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبه قولل كيف فردوسيه جنو قورسن وليغيه قانغار هدي آتيهين قيرا لغو بيري وحييgeena qiimaha ku sugan qoorsiga ilaasha quraanka iyo sunnaha la isku larayaan la kala qaadin qaada dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura qulubtiina qiyaamaha xaqiisa dhawaan loo qulqulayaaye dad iyo qaadirkeeni wacna qaata amarkiisa alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wa asxaabih waman waalaah amaa bacd qisadaa reer banu israa'iil aada inoogu soo noqnoqotay faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid ah bay culimmadu leeyihiin qisadaas sida ilaahay uu nimankan u sharxaya adaa kala duwan marintoodii wanaagsanayd buu ammaanay walaqad ikhtarnaahum calaa cilmin cala alcaalamiin suuratu dukhaan wafadalnaahum cala alcaalamiin suuratu ljaafiya xaaladahaas waa xaaladaha wanaaggoodii la sheegaya baahay mararka qaarkoodna qur-aanku ceebta iyo eedaha ay lahaayeen buu soo celceliyaa sheegaa وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم تأسنا مركا waxay tilmaamaysaa intoodii xumeeyd oo quraanku wacdaynayo marka waa sababaha keenaya la soo celceliyo dadka reer banu Israa'iil noocyay ahaayeen noocyadoodaas waxa kamid ahaa ayma wanaagsan oo hogaamintooda ay fiicnayd sida nabi Suleymaan oo kale qisadiisii waa haynaa ninkii qaaruun oo kale isagana hogaamintiisa xumayd qisadiisii isagana waa ka waramaysa waxyaabo loo soo celceliyay waxa kamid ah nimankani waxay ahaa nimanka kaliya ee jasiirada al-arab ku nool gaalada ee kitaabna hayay kitaabkii hayayna way ka been sheegeen markhaati bay ahaayeen markhaatigii bay ka been sheegeen marka intaasoo aayadood baa soo noqonayso la faraya ilaahay wuxuu faraya inay cadeeyaan markhaatiga nabigay markhaati ka ahaayeen oo quraanka kariimka ah oo waqtigu soo baxayo meeshu ka soo baxayo markhaatiga ku bakhaylinaya waa amaanadaha khiyaameynine cadeeya baa la leeyahay marka la quraanku waxa uu xusaa ceebaha reer banu Israa'iil oo aad u fara badan aynu mar gaar ah tilmaami doono insha Allah sawirkooda banu Israa'iil fi al-Qur'an أو اليهود في القرآن يهود موقال كلهم قرآن فالآيات بين السردين دونا بر إن شاء الله ما كحين دونا وايه ولاهي ويرين من كاسو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وحيابا الله فريا وحيابا نوى الله دينيا الرماب بدن بهال كان استبصع وحكرا ملك ميشا كتراوية غير بنو إسرائيل haddii mar la doortay inta kadib lana la cadalay muuminiintiinu hadaa amaanan tihiin oo ilaahay idin doortay oo sameeysan wixii reer banu Israa'iil idinkana waa la idin cadalay ma jiro qolonimadooda ilaahay ku qadariyo laakiin ilaahay adoomaha wuxuu ku qadariyaa qiyamay leeyihiin iyo tilmaan wanaagsan iyo sida ilaahay u adeecaan subhanahu wa ta'ala iyaguba marba ahaayeen kuwa ilaahay u doortay haddana malcuuniin bay ku dambeeyeen ummadana ilaahay wuxuu tilmaamay inay yihiin ummadaha kuwa ugu khayr badan khayriyadaas waxa ay ku khayr bateen hadii laga waayana sida reer banu Israa'iil bay noqonayaan marka midka la eegaya waa sifaadka wanaagsan iyo sifaadka xun sifaadka wanaagsan raaca kuwa reer banu Israa'iil xunna iska ilaaliya idan marka safxadaha ama xaashiyaha taariikhdu ma daa'imto joogto ma noqoto isbedelka ayaa amaanta iyo eedda labaduba ay la socdaan wax ku qaado weey ragaas nolosha kaaga horeeyay waxa say mareenay ku ceeboobeen ha ku fashilmin ka digtoonow nicmadaydii xusaba ilaahay aan idin nicmeeyay udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum dadku waa laba qaybood bay ilaahay culimadu iyagoo dhadhansanaya aayadaha abidun ni'am wa abidul mun'im abidun ni'am dad adooma u ah nicmada iyo adduunyada kuwa luqadooda lagu la hadlo reer banu Israa'iil oo nicmada xusabaalay ila maalkum bay yaqaanana bahasha si afkaranayaan marka bahasha eegtaan de ilaaha bixiyayna garta taasa la yidhi mara taasay fahmaya abidul mun'im ilaaha mun'im ka dadka yaqaanana waa muuminiinta dhabta ah ilaahay wuxuu fadkuruni adkurkum aniga xusa ana waan idin xus
iyaga toos baa la ilaahay xus ilaahay baa yaqaanaa subxaana wa tacaala adduunyada ma yaqaanaan nicmatii idaafadaasi waxay tilmaamaysaa wax kasta oo nicmaha macnaa waa mufradun mudaafun limacrifatin yacum fi cilmi alcarabiya mufradka haddii lagu xidho loo nisbeeyo ismi macrifo ah caam buu faa'iideeyaa nicmatii waa nicmadaydoo dhan weeye wax kasta oo aada hesho ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala qur-aanku ku caddeeyey wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmooyinka ilaahay aad bay u fara badan yihin nicmatii allatii ancamtu calaykum waawfuu bicahdi uufi bicahdikum waiyaaya farhabuun cahdigayga oofiya anna kiinaan oofin ilaahay waxbaa la kala iibsadaa addoomuhu ilaahay waxbay ka iibsanayaanoo wixii ku qaaliya bixinayaan nafta iyo maalka iyo xoogga iyo cilmiga iyo waktiga ayay bixinayaan ilaahayna waxay ku farxaan oo janno abuu siinaya marka cahdiga ilaahay haddii layidhi fuliya reer banu israa'iil innagana fuliya baa laydin leeyahy cahdigaasi waa caalamkii caalamu dar la odhan jiray intaan adduunyada loo soo bixin buu ilaahay ballan ka qaaday dadka khalqiga alastu birabbikum soo rabbigiinni mehi waynu wada qirnay kii ballantaa ka baxaa dee waa beenaale ilaahay ku buriyey ballankii iyo cahdigii cahdigaasi waa ka rasushu ka qaaday waa ka kutubtu ay naga qaadayso marka sidaa loo yidhi ballanta ilaahay fuliyo in diintiisa la raaco reer banu israa'iil innagana waa laynaga doonaya cabsidu waxay ku habboontahay halkeeda in la dhigo waiyaaya farhabuun waiyaaya fattaquun taqwada iyo rahbada iyo qiimaha badani waa ta ilaahay laga cabsado subxaana wa tacaala cabsida ilaahay laga cabsadaa waa mid maca jacayl ah cabsida ummadaha kale laga cabsadaana waa mid maca alkaraahiye iyo nacayba ilaahay adigoo ka cabsanaya ayaad weyneynaysaa ood qadarinaysaa ood ku jecesha haddaad nin madaxa ka cabsanaysa ama bahal ka cabsanaysana waa mid maca alkaraahiye iyo nacdal baa la socota waaba ku dhibe ayaa ku dhaafiyaad leedahay marka waa cabsi gaar ah oo horumar lagu helo waaaminuu bima anzaltu musadiqan limaa macakum walaa takunuu awala kaafirin bih amarku ilaahay siiye waxa weeyaan towraad baa idinka la idin siiyey qur-aan baa ka dambeeyey waa kan imika aynu hayno rumeeya buu ilaahay ku addoostay nebi maxamedna wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam haddii nebi muuse iman lahaa ama maanta uu joogi lahaa umay suuro gasheen inuu aniga i rumeeye mooyaane inuu aniga i rumeeya unbaa waajib ku noqon lahayd reer banu israa'iilna saasaa ku waajiba marka waxaa halkaa ka cad qur-aanku inuu nasakhay kutubtii hore muhayminan calayh kutubtii hore u nasakhay marka inay raacaan maanta towraad baanu raacaynaa iyo injiil baanu raacaynaa iyo maanta waxaynu adduunyada ka maqlaynaa diimaha saaxiiba laga dhigayaayo lakum diinukum waliya diin qolo waliba kooda iska haysanaysaao musaaxabatu aladyaan markaa taasi waxa weeyaan atalbisuuna alxaqa bilbaatil waa inaga arki doonaa waxa weeye limaa macakum walaa takuunuu awala kaafirin bih ka u horey ummadda u horeysa ka gaalowdaha noqonina oo miyaa laga fahmayaa mafhuumo laha bay dhahaan culamaau tafsiir macnuhu ma aha ka u dambeeya ka gaalooba noqda ee waxa weeyaan idinku u horeeya ilaa shaygaad aqoon u leedahay xaqnimadiisa waa inaad dadka adigu ugu horeysaa ceeb bay idinku tahay idinkoo garanaya xaqnimada qur-aanka iyo rasuulka inaad diidaan ama dadkaba ugu dambaysaan ugu horeeya waxyaabuu ilaahay reer banu israa'iil u diiday innagana aan laynoo ogolayn waxaa ka mid a walaa tashtaruu biaayaatii hamanan qaliila aayadaha ilaahay lacag yar ha ku iibsanina qul mataacu dunyaa qaliil adduunyada gedigaada alaabteedu iska yarta marka haddaad tidhaahdo aayad ka mid a aayadaha ilaahay baan ku iibsanayaa si aan kursi u helo ama maal u helo ama magac u helo manfaca adduunyadu si aan u helo aayad baan ka tanaasulayaa oon ka tegayaa ama qarinayaa waa iska qaliil waxaad heshayba waa qaliil marka tanaasulka diinta ilaahay laga tanaasulo ayuu noqonayaa iibka aayaduhu diintii ilaahay xaqa ahayd iyo markhaatigii la caddayn lahaa iyo ku yeedhintii xaqa lagu yeedhin lahaa oo la qariyo taasaa waxay tahay iibka aayadaha ilaahay la iibsaday wadaadadii reer banu israa'iilna caamada kuwooda madaxda ah iyo maalqabeenku waxay odhan jireen waxaa ma karaynee ka warrama haddaa qiil u samaysaan bal qiil u baadhbaadha balaan isku noqon waxbaa loo cantatabayaa waa iska sax weeye waa iska sax taasay ku socdeen walaa tashtaruu biaayaatii hamanan qaliila
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وحيابه هير بنو إسرائيل لو ديدان إننا الله إنه قلين فماذا بعد الحق إلا الضلال حق وحنا كدن بيا وهلو أدونك وحا لغوها ياون حق يا باطل لبدا يماد راعيس اختيار كادو إلهي كسيوكو إيغيا marka cidda taqaana xaqa waajibka saarani waxa weeye inay xaqa cadeeyaan qawaacidka culimadu ay in fara badan ku soo celceliyaan waxa kamida wujuubul bayaan waqt al haaja in xaqa la cadeeyo waqtigiisa marka bayaankaasina laba noocba uu noqonayaa bayaanul qaali wa bayaanul haal bayaanul qaal cilmigiyo loo baahan yahay qofka la weydiiyo cid kale la weydiiyana aanay jirin oo loo baahan yahay وبيان القال قول كي لغو يري ان جوابتي سي لا بخيو بيان الحال نو جرا حالده وقتiga taagane haday mudan tahay in wax laga yiraahdo in iyadana wixii la cadeeyo xigmadeedana la saaro oo waa amaanada diinta weey dunyada waxay leedahay amaanadeeda in la guto amaanada diintuna waa noocaas oo kale idan marka madaxda muslimiinta iyo culimadooda iyo muslimiinta guud ahaanba qof waliba xaq inuu yiraahdo kelmad bu ku leeyahay waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay munkarka qofkii qalbiga ka diidaya kii qowlka iyo kii ficilka iyo waa tii weeye waxyaabaha loo diiday waxaa ka mid ah xaq iyo baadilka in la isdhexgeliyo iyadoo xaqa la asturayo taa imika aynu ka soo warramayna wey xaquna waa xaq sidiisu u mudan yahay walxaqu axaqu an yuqaal wuu mudan yahay lagu dhawaaqo baadilkuna in dadka looga digo oo loo caddeeyaabuu mudan yahay marka in sawirkii baadilka xaqa loo eegaysiiyo ama inay siman yihiin la sheego wax xaraan weey ilaahayna u diiday subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil innagana aan la inaga ogolayn marka labadu wawdaas cadafna way noqon kartaa waawul maciyana way noqon kartaa macnaheedu waxa weeye walaa talbisu lxaqa walaa taktumu lxaqa labada arrimoodba waa la diiday xaq iyo baadilka ay isu egaysiinina ee kala saafo kala saara تدمنا نهي سؤال الصعداء ولا تكتموا الحق حق قريننا لبدا الريموت بوي نكو امرنا حق الا عدايو يا حق باطل كاين لغا سارو وكسارن يسيسين لا ولا والمعينه وين نقطه ومعناه waxa way labada ha isku darina ولا تكتموا الحق ايات قيبته hore ولا تلبسوا الحق وتكتموا الحق ومع كتمانكم للحق معناها isku darin oo inta xaq iyo baadilkii isku eegaysiisaan xaq qarintiisina ha raacinina labada arrimada ku isku darin mid kastaba hal ilaahday waxyaabuhu ilaahay umada u diiday wa aqimu salata wa atu zakah salaada oogo sakada bixiya warka'u tukada ma'a raaki'ina dadka tukanaya la tukada atamuruna an-nasa bil birr dadka ma waxa faraysaan samaha iyo wanaaga wa tansawna anfusakum naftiina waa ka ilaawaysaan oo waa ka dhaafaysaa oo antum tatluuna alkitaaba idinkoo kitaabka akhriyaya afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo aydaan waxba garanayn reer banu israa'iilow wastaciinuu bisabri wasalaa sabirka iyo salaada gargaarsada oo kaashada wa innahaa lakabiira salaaduna way weyn tahay ilaa cala alkhaashiciin dadka alle isu dhuldhiga ee ilaahay isu miskiiniya ayuunbay u fududahay الذين كواسو يظنون يقينسا ملينا بمعنى يقينسا وككلصون أنهم يجوا ملاقوا ربهم إن إله هذا لكل من دونان آخره وأنهم يجوا إليه راجعون إله إن لا يعلني وألا له رجينا يكوى يقينسا ككلصون marka waxyaabaha waxaynu soo nidhi wax kasto oo nimanka laga la hadlay oo loo diiday wala inoo diiday wax kasto la farayna waa la faray quraanku aayadahan qisadan ka waramaya nimanka way ka sheekeeyeen sayna horaba oo soo bandhignay inuu soo tilmaameynay laakiin ma lahum wama alayhim wixii ay ku gafeenayeen wixii ay wanaag lahaayeen labadaba inaguna sidii asalay inooga hadlayaan salaada oogo sakada bixiya aayadda waxay cadaysay diimaha sawaayigu inay leeyihiin diimaha ilaahay uu soo dejinaya salaadna inay leeyihiin sakana leeyihiin labadaba wada socdaan salaada iyo sakadu وحق البدن وحق المال وعبادة شركة لقى بحية صلاة سكدنا وعبادة مالك لقى بحية نفتي مالك بوين كل عبادة سنينة إلهي إنسيي أي نقوم هدنقينا سبحانه وتعالى عبادتنا وما هدنقا
waaqiimu الصalaaةa waaatu الزakاة warkacuu maca الraakiciin rukuuca dadka rukuucaya la rukuuca culimadu waxay leeyihiin waxa laga fahmayaa dadka tukanaya la tukadoo jamca taga dadka tukanaya la tukada oo kibir baa ku jira iyo isla weynaan oo annagu salaada iyadu waa noo gooniyo dee wixii ay wadwadi jireen meel gooniya la geli jireen salaatul yuhuud baa la idhaha nooc kaala bay leedahay oo bahal faraarale wey oo dadkuba kala duwan yahay qoloba qoysku siba u tukadaa wadaadadu siba u tukadaan caamadu siba u tukataa salaad isku midaba ma ahaba marka salaatul yuhuudka iska daayo ya waxa samaysateeno muslimka ilaahay la tukada rukuucdii ba haddana si gaar ah ilaahay u cayimay rukuucda iyo sujuudda waa meelaha ugu cajiibsan adoonkii sidaa u taagnaa isbidayay ayaa ilaahay isu dhul dhigayo oo markaas marna madaxa foorarinaya marna madaxu dhulka dhigayaaba labada meelood ugu cajiibsan weey subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la labadaas la kala akhriyay warkacuu maca الraakiciin inagana dee ilaahay wuxuu waajib inaga dhigayba salaada inay raggu ku tukadaan masaajidada iyo jamca وهذه الصلاة صدحنا آيادود isku xiga laba jeer baa ilaahay uu soo celiyay salaada oogana waa la yiri hadana wastaciinu bisabri wasalaah salaada gargaarsadana waa la yiri salaad la'aani waa diin la'aan asxaabtii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin anagu diin la'aanta waxaan u naqaanay waqtigii nabiga salaad la'aanta mujtamaceena intee tukata magaalo wala tagtaba nisba yar ama tiro yar baa tukanaysa masaajidada galaysa rag iyo dumar inta kale way isdhex qaadayaan oo iska midhiiqinayaan waxaad oranaysaa war malaha dad baad soo dhex gashay aqaliyadu ay islaamta wadamadii malaha islaamku uu ku yaraa ayaa timid oo adigaan arkaya nisba tiro yar inay tukanaysa intii kalena aanay ogeyn baadaan iyo aqiimitoona هذه الصلاة أيضا كوت إلهي دنومها سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها هذا حمان سميسنا أضي كدلتها الله هذا وناك سميسنا أضيق أيها نفسه هذا وناكيي دراستها لقوا سميه أخيرا صلاة قال الإسلام بوحي كمر خاتك عن فائدوين كإلا قفك بني آدم شركي سيقول الله هاي وروحdiisa u leedahay oo waxay u leedahay bulshada oo waxay u leedahay caafimaadka qofka ruuxda u leedahay oo qofka tukanaya iyo qofka kale isku deganaansho maaha waa dhab weey arintaas qofka tukanaya sidoo nabi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu kaco salaada xarig shaydaan ba ka furma markuu weyseystana mid labaad ba ka furma markuu tukadana mid saddexaad ba ka furma subaxdii buu soo shaqo tagay isagoo nashida firfircoon oo faraxsan oo hadduu xataa shaqaysanayo customerka saan u qaabili karaya haddii kale saddex xarig baa ku xidhan oo kala yaacay kii la hadlaba wuxuu leeyahay sheegaysa war magaalada gal waxba ka iibin maayo marka dadkiina xataa lacagta doonaya mid tukada shaqo galiya yaan customerku macmiilku idin ka cararin waa tusaale wa khabiith an-nafs iyo tayyib an-nafs qofna isagoo faraxsan buu soo toosaya qofna isagoo iska kadeedan marka ruuxdan aad arkaysaa quudkeeda iyo waxay cunaysaa cunada wahay dhab ahaan waxa weeyaan cibaadada ugu muhiimsan weey marar badan waa tayn soo xusnay marka tukanaysa arkaanul islaamkii oo dhan baad la imanaysa waa tukanaysaa tukashadii waad wadaa ashahaadadii miyaana ku jirin salaada wada shahaadanaysa waad soomaysa oo soonku xaguu ka yimid inta tukanaysa ma waxbaad cunaysaa mise waxbaad cabaysa soonka iyo salaada sooma kulmaan meelaha ka midaysan waxa kamida qof kasto tukanaya uu soomayn waad xajaysaa arkeed u tukanaysaa de hadaad koonfur tukata ama sharqi miyay ka ansaxaysaa miyay waad xajaysaa sakadiina waad bixinaysaa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha qof kasto tukanaya naftiisii buu nadiifinayaa oo uu sakaynaya sidaas marka saacadada dadku maanta ay doonayeen deganaanshaha adoo soo dawaqay markaad masaajidka timaado aad tukatay aad quraanka dhageysatay aad wardido ee aad ducaysato adigoo digay oo kala miirmay ayaad masaajidka baxaysa hadii kale adigoo murugsan waxay leeyihiin salaadu ku dheeraan mayno oo faa'iidooyinka inaga waxba inagu filan faa'iidooyinka diineed ay leedahay iyo kuwa aakhire ay leedahay iyo kuwa ruuxda xataa kuwa wax qorqoreed daraasadeeya ee wax baadhbaadha waxay yiraahdeen qofka salaada tukanaya
caafimaad badan buu jirkiisu ka helaa dad badan baa luqadda caafimaadku fahmaya haddii la yidhaahdo wadna xanuun baa ku haya dhakhtar walba wuu maraya laakiin haddii la yidhahdo wadna xanuunkii dembigaa ku helaa oo ku haya wadaadu iska dhaaf buu leeyahay waxba ima hayaan anaa og taas wadna xanuunka dembigaana ka weyn wadna xanuunkan xididadu awdmayaan ogow tusaale yaroo keliyanu ka soo qaadanayna waxaynu ogsoonahay diinteennu gabadha caadada leh iyo ta dhiigga dhalmada leh salaadu miya ku waajiba mise kuma waajibaha kuma waajibaha salaada waa laga daayay inta caadada leedahay mana soo qalaynayso laakiin islaanta uur kale ka war miyaa laga daayay salaada islaanta uur kale miyaa laga daayay ma salaadii waa lagu leeyay way tukanaysaa oo labadooda yamaa culus haddii culays wax looga daynayo tan bishii 8aad maraysa ama bishii 9aad jilbaha bay ku kacaysa laakiin tan caadada leh way iska xiimaysaa way iska ordaysaaba labada yamaa fudud tan caadada leh baa fudud tan uur kalena way culus laakiin hadaa maxaa tan looga daayay tan culus looga dayn waayo adigu culayskana adeegaysaa laakiin culayska qarsoon baa jira oo ilaahay uu og yahay subxaanahu wa ta'ala adoomihii baarbaarayna xigmadii gadaal ay wax ka soo heleen ruuxa dumarka ah ee uurka lihi salaada waxay ka heshaaday leeyeen culimadu faa'iido aanay ka helaynin tan caadada leh faadaas maxay tahay markuu qofku rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay qofka maskaxdiisa iyo makaankiisu dhiig badan buu qaataa bayda dhiig badan ayaa ku soo shubba oo faa'iido u ah oo ilmaha uurka ku jira wuxuu noqonayaa taqdiya iyo tanziif waanu nadiifinayaa qidaa iyo raashinna uu yahay ilmaha intay rukuucsan tahay iyo intay sujuudsan tahay iyagu waa exercise baa u yaqaanaane exercise-ka noocaasa ama dhaqdhaqaaqa noocaasa markay samaynayso dhiiggaa badan buu makaanku helayaa ilmihii baa dheef badan helaya sidaa daraaddeed xaamiladaas iyadaaba faa'iidayba ilmaheedii baaba faa'iidayba oo koritaan ka helay laakiin tan caadada leh soo dhiig kamuu soconin haddii dhiig kale makaankii ku shubmo miyaanay dhiig baxayn isku celcelis muddada ay 7 cisho ee caadada ay ka socoto ugu dhowaan litr dhiiga ka shubma marka haddaba ay salaadii tukato waxa ku dhici doona in makaankii dhiig ku soo shubmo oo dhiigii uu ka dhamaado waliba dhiigga qaybta difaaca unugyada cadcad samaysa qaybtaasi baa markaa ayaa ka waxaysmaysa ama ka dhamaanaysa ama ka naaqusaysa cudurrada u nuglaanaysa marka xigmadaasa ku jirto tan xaamilada ana faa'iido u noqoto cibaadadii iyo dhaqdhaqaaqan ay salaadii samaynaysa tanna dhibkaasay ku tahay al-alim al-khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latif al-khabir ilaahay baa wax walba ogso subhanahu wa ta'ala wa tusaalaw wax wal oo ilaahay uu ku farayba waxaad ogaataa in xigmadi ku jirto subhanahu wa ta'ala وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان